الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bulshada Soomaalida Itoobiya ama deegaanka Soomaalida Itoobiya ku nool ama bulshada Soomaaliyeed oo dhan ama bulshada Islaamka oo dhan, gaar ahaan bulshada deegaanka Soomaalida waxaa jira baahiyo badan, abaaro, dhibaatooyin, kulayl, adugu iska dadkeenu markii horeba iska fakhri buu ahaa. walaalayaal dakhliga koobaad ama isha koobaad waxay naga soo galaan mushaarada dowladda unbay ahayd. inkastoo sicir barar dhacay oonaan ahayn dad wax la soo baxaa, inkastoon jeclaan lahaa inaan noqono dad dhulkooda iyo deegaankooda wax kala soo baxa, haddana waxaan nahay dad baahi iyo fakhri iyo colaado ay soo diloodeen. marka walaalayaal waxaan idin leeyahay 2024 bishii March, Ramadan Kareem. walaalayaal ha la isu naxariisto. dadka baahan ee fuqarada, dad waxaa jira aan dabka shidanin, dad waxaa jira iska tabaalaysan oo deriska ah. sidii hore baahidu way ka badan tahay. in la isu naxariisto oo la iska warhayo bulshada islaamka ah dhammaanteed. anigu idinma dhahayo Soomaali iyo Oromo iyo waxa, laakiin waa bulshada islaamka dhammaantood inay isu naxariistaan. dadka islaamnimo ugu naxariista walaalayaal.